dufcadani oo ah tii koowaad ee ka qalin jabisay kulliyadda East Africa laanta jinacsani ayaa munaasabadani qalin jabinta oo si heer sare ah loo soo agaasimay ay ka qabsoontay madasha kulamada ee degmadaasi jinacsani waxaana munaasabadani qalin jabinta ka soo qayb galay maamulka degmada jinacsani mas'uuliyiinta kulliyadda bariga Afrika ardayda qalin jabinaysa waalidiinta ardayda qalin jabinayay waxgaradka degmada jinacsani iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeyn hadallo dardaaran iyo dhiirigelin ka soo jeediyay gudoomiyaha degmada jinacsani mudane Cabdinaasir Sheekh Maxamed isagoo daayirta ugu baaqay in waxbarashada ay lahayn dhamaad isla markaasina ay ku dhiiradaan sidii heerar kala duwan ay uga gaari lahaayeen waxbarashada dhankooda waxaa si wada jira uga hadlay maariyaha kulliyadda bariga Afrika laanta Jigjiga mudane Cabdirashiid Daahir Jibriil iyo mudane Xasan Nageeye iyagoo halkaasi hadallo dardaaran iyo dhiirigelin u soo jeediyay daayirta ka qalin jabinaysay kulliyadani astaan qurux badan oo horumarineed oo waxbarashadii lagu dhiiran yahay dhalinyartii ay ku baraarugsan yihiin baa noo muuqata dadka inta la eeg ee dhallaanka ah ama dhalinyarada ah ee ka qalin jabinaysa kulliyadaha qaybaheeda kala duwan waxaan mar labaad idin leeyahay congratulations mudan ayaaliye marwooyin ardaygu maalinka uu qalin jabinayo waxa uu dib u milicsadaa taariikhdii hore ee uu soo maray dadaalkii akhriskii aadka u badnaa dulqaadkii xilliyada xanuunka badnaa iyo in uu ku farxo maanta yani heerka uu taagan yahay waa mid astaan u ah ardayga qalin jabinaya marka in uu ilaahay ugu xamdiyo oo uu 100 jeer ka badan kumanaan jeer u dhaho ilaahay bay u sugnaatay arintaasi waa mid leeydi ka baahan yahay mudanayaal iyo marwooyin dhalinyarta qalin jabinaysa ama ardayda qalin jabinaysa waa natiijo ku timid dadaal badan oo ay geliyeen maamulka jaamacadda ama kulliyadda Eastern Africa oo hormuud yahay wadane Xasan Mawlid iyo agaasimayaasha kale ee ka hawlgala idinkana waxaan idin leeyahay baga ayaa dalka soo gaarsiisan college-kiini waxaan jecelahay dhowr qodob inaan dul istaago oo dhanka ardayda aad u taabanaysa ardayday waxaad ogaataan in maanta ay idin bilaabantay ciwaan cusub oo nololeed waxa idin bilaabmay ciwaan cusub oo nololeed waxaad ka soo baxday goob wax la idinku baro idinka oo shaqaysanaya qayb ardayda kamid ah sida uu yaani information-ka aan ku hayo waana arrin runtii aad iyo aad loogu farxo oo aan idinku dhiirin karayno mar kasta iyo daqiiqad kastaba mudanayaal iyo marwooyin maanta qalin jabintan aad halkan yaani ku qalin jabinaysaan waxaad la socotaan oo aad ogaataan in aad ummadiina uga adeegtaan aqoontii iyo tacliintii iyo xirfadii la idin baray maanta laga bilaabo waa mas'uuliyad aad maanta qaadaysaan maanta waxa qalin jabinaya dufcadii koowaad ee college-ka qaybta jinacsani oo ka kooban 144 ardaya oo iskugu jira rag iyo dumar college-kan marxalado badan buu soo maray oo ka kooban in macallimiintu ay ka imanayeen caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga kuwaas oo taraag soo galayay si ay uga qayb qaataan waxbarashadan kooban ee la yiraahdo short term training oo ah TVET programka marka ardaydan waxay ka kala qalin jabiyeen waa diploma sida aan sheegay oo kala ah 4 level oo level 1 up to 4 marka waa markii ugu horeysay ee college-kan uu hirgeliyo TVET programka kuwaas oo ah diploma inta ay munaasabadani socotay waxa halkaasi abaalmarino kala duwan la guddoonsiiyay ardayda kaalmaha koowaad ka galay waxbarashada muddada ay u socotay gabagabadiina waxaan wareysi la yeelanay qaar ka mid ah ardayda ka qalin jabisay kulliyadani bariga Afrika laanteeda jinacsani waxaan ka qalin jabiyay qaybta accountiga waxaan leeyahay horta waan aad baan maanta faraxsanahay dareenkayguna aad buu u kaxsan yahay waxaan bartayna waxaan dadkayga inaan uga faa'iideeyaan u bartay hadda ka hor ma jirin degmadeedan meel wax lagu barto magaalooyin kale aan aadi jirnay hadda si fursad baan helay waana fursad aad qaaliyo oo ka faa'iideysan wallahi anaga dareenkaygu aad ayuu u fiican yahay dadka naga dambeeyana aad baan uga dardaaraya inay wax dhigtaan anagu aad baan ugu faraxsanahay nasiibka uu Ilaahay noo keenay macallimiintii noo keentayna aad baan ugu mahadcelinayaa wallahi wax la soo koobi karo ma gurigaaga ka soo baxdo oo waxbarashada goobtii waxbarashada dhimanayso haddana aad laabanayso transport aad bixinayso jirin waa wax macni Ilaahay lagu maad